xisbiga wadani ayaa markii ugu horeysay ka hadlay isku shaadhayntii uu shalay sameeyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi la taliyaha arrimaha saxaafadda musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Master Muniir Axmed Cigaal oo dalka Sweden ugu waramayay Home Cable TV ayaa sheegay in aan isku shaadhayntan keenaynin wax weyn isla markaana dhaleecayn u soo jeediyay isku shaadhayntan uu madaxweynuhu sameeyay barqada horinta isku shaadhayntu waxa bay tahay anigoo oo weylnay ku sii istaagtay madaxweynaha cugashadiisii hore ee wasiirada oo xogtay ee dastuurku sida uu siiyay markii uu doorashada helay dabcan xisbiga wadanina uu haniyeeyay aad bay dadku saluuga muujiyeen xulasho ahaan dadku soo xushay iyo waliba sida hanaanka gobolada uu ku sileeyay dadkeenu qabyaaladu bay yiraahdaan in gobolada oo ahayd mid dhinac ka raran haday tay kuwii u daayay iyo kuwii ku soo kordhiyayba mid laga wada dharsay buu ahaa waxa yaab leh inuu isku shaadhayntii maanta ugu dambeysayna ka daro dibir dhal ay noqotay hadii ay tahay anigoo ixtiraamaya runtii wasaaradaha waaweyn uu isku bedelay wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo waxbarashada Yaasiin Xiir Faratoon oo runtii anigu aan qabo dadka qaba aan ahay in aan ku habooneen wasaaradda arrimaha dibadda dadaalahan iyo kartida ay maanta u baahan tahay in Soomaaliland lagu xambaaro iyo takale ah wasaaradda maaliyadda madaxweynuhu marka wuxuu baan anigu ka oranayaa kelmadu mar hore madaxweynuhu ka yiri Muuse Biixi Cabdi xilligii madaxweyne Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo ahayd madaxweyne xilalkii waxaad ku soo ururisay in suldaan idin wada xukumo sida adigu hore u sheegtay qarankuna inta uu ka balaadhaa marka macna badan isku shaadhayntaas mid sameeyay